Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyr iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda ayaa maanta ka qayb galay olole nadaafadeed oo lagu doonayo in dib loogu soo celiyo bilicdii ay lahayd garoonka kubadda cagta ee Muqdisho kaas oo ay ka baxeen toddobaadkan gudihiisa ciidamada Amisom ee nabad ilaalinta u jooga dalka. kumanaan qof ayaa ka qayb gashay oo ka kala imaaday degmooyinka gobolka Banaadir. Mas'uuliyiin ka tirsan dowladda iyo ciidamada xoogga dalka ayaa ka mid ahaa dadkii ka qayb qaatay nadaafadda. Wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda Soomaaliya Marwo Khadiija ayaa ka hadashay muhiimadda uu leeyahay garoonkan dhalinyarada Soomaaliyeed. Khamiis kasta bisha khamiista ugu dambaysa ballantii ahayd nadaafadda in garoonka istaadi Muqdisho oo dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada iyo bahda isboortigaba ay aad ugu taamayeen in ciidamada Amisom ee nabad ilaalinta u jooga dalka Soomaaliya oo 8 sano garoonkan gudihiisa ku jiray sidii looga raari lahaa dibna loogu cusboonaysiin lahaa dib u dhis loogu samayn lahaa waa ballanqaadyadaadii xukuumadda nabad iyo nolol. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyr ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay. maalin maalmaha kamida markay wasiiraddu uga casuumtay kubad la daawanayo garoon kamida garoomada magaalada Muqdisho oo buux dhaafay ayaan shacabka Soomaaliyeed u sheegay ma la fiirsan karo in garoonkeennii istaadiyo Muqdisho uu meel isaga yaalo dadkeennina ay la yihiin caruurtoodu meel ay dhalinyaradu kubadda ku ciyaarto maalintaas ayaan niri Soomaaliya waa in garoonkii laga soo laabtaa. sanad iyo xoogaa Soomaalian lahayn awoodda dawladnimada waa in lagu soo celiyaa gacanta shacabka Soomaaliyeed. in garoonkiina gacantiina lagu soo celiyay Soomaaliya qayb kamida dawladnimada. haddaba diyaar ma u tahay inaad u adeegto dalkaada iyo dadkaada? diyaar ma u tihiin idinku inaad xaaqataan dhisataan garoonkiina uu shaqeeyo? diyaar ma u tihiin sidaan idin lahaa inaan cid walba oo doonaysa inay wiiqdo dawladnimadiina aad hor istaagtaan? maanta waxaa muuqata astaan dawladnimo. waxaan rabaa haddii aad sugayseen inay idiin timaado ajnabi idiin dhisa garoonkan inaad iska ilowdaan. qof idiin dhisaysa male idinku diyaar ma u tihiin inaad dhisataan? maanta halkan waxaan isugu nimid in dawladdu shirkii golaha wasiirada aan ku galnay Garowe inaan ansixinnay nidaam cusub oo la yiraahdo isxilqaan. nidaamkaas isxilqaan waxa uu yahay inaan kulligeenu adeegno dalkan. Zikri Maxamuud Timcade, Universal TV, Muqdisho.